السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii waxaan halkan maanta u imid oo qayb ka ah inaan halkan u bato oo aan si joogto ah aan wada shaqeyno si aan isugu diyaarino howlgallada nagu soo food leh. waxaa soo socda joint operation oo AMISOM iyo SNA iyo qolada Mareykanka ah ee iyagu naftooda gacanta naga siiya dhinacyo badan aan wada geli doono operation howlgallo. marka howlgalladaasi waxay keeni doontaa inaan isku badanno bacdama ay tahay dee meeshii annagii qolooyinkan hadda laayay oo maalin walba u taagan inay shacabkeenna laayaan inaan is aragno. maxaa yeelay waxaan ognahay mar walba iyagu inay weerar soo qaadaan ay dadkeena laayaan mar alla markay damcaanna ay weerar sameeyaan. waxaa loo baahan yahay marka annagu inaan bedelno oo annagu aan noqono kuwii wax hujuumayay inaan noqono, iyagu marka ay noqdaan kuwii cararayay ama kuwii isdifaacayay. waxaan hadda joognaa oo xukuumaddu dhisan tahay sidii loo ansixiyey waa 8 bilood iyo xoogaa. 8daas bilood iyo xoogaa waxaan aaminsanahay in wax badan la qabtay, wax badanna ay noo harsan yihiin. mar walbana aan dee dardaaran iyo wada hadal joogto ah aan idinku haynay oo ay kow ka tahay ciidanka in discibliinkiisa la adkeeyo, shuruucda la ilaaliyo. maxaa yeele waxaan ku kala dambeynno waa shuruuc. haddii mar uusan shuruuc jirin haddee qof ka xoog badan ma jiro. inaan ilaalino sharciga noo degsan oo qof walba uu ixtiraamo kala sarreynta. maxaa yeele taas weeye waxa dowliga ah. wax badan waxaan ka hadalnay arrimaha musuqmaasuqa oo dee mar walbaba si sahla dushana looga tuuro oo wax alla wixii xumaata annagana la dul saaro. marka arrimahaas musuqmaasuqana waxay noqotay runtii wax ceeb ah oo nalagu tilmaansado oo soo noqnoqda oo weliba hadda tii ugu dambeysay la leeyahay qaar ciidamadeena ka mid ah ee mucaawanadii la siinayay in hakad la gelinayo. waxaan idiin sheegayaa annaga inaan isku tashanno, annagu inaan wax qabsanno. dadkan ajnabiga ah oo na taageeraya waa ku mahadsan yihiin, ciidan geesiyiin aad tihiin, waa soo halganteen. wax kastoo noolaga sheego waxaa weeye dad u taagan dalkan difaaciisa oo diyaar u ah dalkan inay ka saaraan cadowgan ummadda soomaalida dhibaya. intaas laakiin inay ku joogsato lama rabo. waxaa la rabaa dadka na caawinaya inaan kalsooni gelinno yaa la rabaa. waxaan caddeynayaa haddii wax hakad la geliyo annagu dowlad ahaan waxaan ku dadaalaynaa 5% waxaan ku dadaalaynaa in hakadkaas la geliyey aysan qofna aysan taaban oo aan mushaahar hadday tahay wixii kale oo looga baahan yahay oo agab ah dowladdu wax alla wixii karaankeeda ah inaan keenno. taas oo aasaas ay u tahay inaan isku tashanno. haddii la yidhaahdo ciidan hebela meeshaan ka baxaya inaynan walwalin oo aan isku tashanno. haddii la yidhaahdo lacag baa la goonaya ama la hakinayaa inaan isku tashanno. intaasoo dhanna mar kale waxaa aasaas u ah inaan annaga hufnaan iyo inaan la imaanno daacadnimo inaan la imaanno. walaalayaal howlahan qabannay waxaa ka mid ah inaan tirakoob saxa sameynay oo ay wax noo kala cad yihiin. hadda ciidanka shaqeeya, ciidanka aan shaqaynin, ciidanka howlgabka u baahan, ciidanka dhaawaca, agoonta. waxaan gudbinnay sharciga xaqsiinta aan gudbinnay oo aan doonayno baarlamaanka sida u dhaqsiyaha leh inuu ansixiyo si dad badan oo dee active u ah ciidanka u ah ay u galaan dhanka xaqsiinta oo mushaaharadooda inta ay qaataan
ay ku qaataan iyagoo howlgab ah kuwa dhaawaca saasoo kale agoonta sidaasoo kale oo aan kala naqaano ciidanka diyaarka ah oo howlgallada geli kara oo frontiyada fadhiya iyo kuwa dhaawaca ah oo u baahan in la taakuleeyo aan la isku qasin taas waxay noo suurtagelinaysaa marka imise ciidan yaan u baahannahay inaan maalin walba tababaranno imise ciidan yaan u baahannahay inaan tababar u dirno dibadda waxaas oo dhan yana siinaysaa laakiin haddii hawshu ay iska tahay dee qasna iska tahay dadka wax nala wadaaga oo wax gacantana siiya oo na caawiya waxa weeye qaabkan maaha qaabkay ku shaqeeyaan marka xoogaa inaan isu ekaysiinno horena waa u ahaan jirnay isuma ekaysiinayne horaan u ahaan jirnay marka insha allah hadduu ilaah yidhaahdo wax naga hallaabayo ma jiraan waan isku tashanaynaa waana u wada istaagaynaa difaaca dalkan howlgalladan bilaabanayana insha allah waa ku guulaysanaynaa waana isu diyaarinaynaa hadduu ilaah yidhaahdo anigana waktigay inta badan waxaan siinayaa ciidanka waktigay inta ugu badan dhaqaalaha inta ugu badan ciidankaan siinaynaa oo aan leenahay wax walba dhanka dagaalka xagga dagaalka ilaa dalkan aan ka xoreynayno oo aan ku soo dabaalayno nabad marka waxaa qormaya waa taariikh waxa weeye waxaa la yidhi waari mayside war san ha kaa haro war ha kaa haro keliya ma aha waari mayside war fiican ha kaa haro marka taarikh baa qormaysa shalay sidii aad ula dagaasheen waxaa la rabaa inaan shaljibaarno uusan marnaba caajisna gelin maxaa yeelay hadda weeye wakhtiga loo baahan yahay caalamkuna dadka gacantana siiya oo na taageerana ay tijaabadii ugu cuslayd ayna dul saarayaan oo ayna fiirinayaan ilaa meesha aan taagannahay iyo progresska ama horumarka aan ka samaynayno dhanka ciidanka aqoon naguma yara khibrad naguma yara waxaa la rabaa niyad inaan la imaanno iyo daacadnimo inaan la imaanno karti waad leedihiin laakiin haddii kartidii ay ka maqan tahay niyaddii iyo ay ka maqan tahay maxaanku idhaahdaa daacadnimada ay ka maqan tahay dee waa weel dabada ka duleelo wey waana waxaa loo baahan yahay in ciidanka askarta ah oo idinka hooseeya inaad bartaan walaalayaal waa mahadsantihiin saan idiin sheegay insha allahna waa isku badbadan doonaa waayaha soo socda maalmaha soo socda waxaan isku diyaarinaynaa howlgal waana mahadsantihiin